السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلامي دمانتينا ميل walba dunida ka joogtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub waxaan idin wadaa alaab sunniyaha dib kugu soo celinayso timaha hadii ay ka yar yihiin way ku soo bixinaysaa sidoo kale eyelasheska ama baalasha dadka ku yar hadii aad tahay degdeg ay kugu soo bixinaysaa growth fiicanna way ku siinaysaa maasha Allah sunniyahaaga waxay noqon doonaan kuwa dib u soo laabta hadii ay baaba ka yihiin ama ay ka tirtiran yihiin insha Allah hadda waxaa isticmaalayaa vaseline ko degdeg ay u soo celiyaa wuxuuna ka qayb qaataa tinta si dhaqsi leh inay ku soo baxdo oo sunniyaha ama eyelasheska insha Allah vaseline hal qaada ayaa ka darsaday kadib biyo kuleyl ah hoos u dhigay vaseline waa dhalaalinaya sida saliid camal igu noqdo waxyaabaha ku daraayana oo si dhaqsi leh oo gudaha ugu galo insha Allah alaabtan hadii aad sunniyahaaga habeenkii subaxii aad ku shanlayso iyo eyelasheskaaga insha Allah sida isku bedelaan adiga arki doono dhaqsina way kugu soo baxayaan hadii ay baaba ka yihiin ama ka tirtiran yihiin dadka qaar loo malayaaba inay ka xiiran yihiin oo kale isticmaal insha Allah way ku soo baxayaan growing oo fiican oo siinaya vaseline aadun u fiican yahay markii loo isticmaalo sunniyaha sidoo kale eyelasheska ajiib waaye hadii aad markuu horeysaan soo boqotay fadlan subscribe noo saar gambaleelkana furo si aad u noqoto daawada koowaad hadaa hore noola joogtana waa maasantaa muuqaalka like noo saar siina share garay oo la wadaag asxaabtaada kale sidoo uga faa'iideystaan ما شاء الله sidaas quruxda badan ayuu ugu dhalaalayaa saliid saaid kama dhigayo wax yar markii uu dhalaalo ayaa waxyaabaha kale ku darsan doona insha Allah sida kugu soo baxan sunniyaha iyo eyelasheska adiga la cajabi doono insha Allah muuqaalkan markii aad daawato sameeyso waa arki doontaa sida quruxda badan ay kugu soo laabtaan sunniyaha iyo eyelasheskaaga insha Allah muuqaalkan hadii aad ka heshay fadlan like noo dheh lana sii wadaag asxaabtaada kale sida uga faa'iideystaan ma sha Allah hadsaas quruxda badan oo igu dhalaale biyaha aad karkar muu ahan biyo yar oo qanda cadii oo helo isla markii uu dhalaalaya alaabtan fridge-kaaga ma baahno markii aad sameystid meel iska dhigan kartaa ma sha Allah sunniyahaagana dib uu kugu soo celinaya sidoo kale wax ka halaabayna maaha oo talaajo u baahan hadda waxa ku darsanaya hal qaando oo cocoa powder waaye ama shukulaatka shiidan waa waxa ku daraayo meel walbana waa ka helaysaa cocoa powderka ma sha Allah sis quruxda badan isku dhex gelinaya alaab cajiib ah waqti badan ka qaadanaynin hadana dib kugu soo celinayso sunniyahaaga eyelasheski ka gurmay ma sha Allah kuuna madooweynayso wayna ku qurxinaysaa isqurxinta dabiiciga ah mar walba channelkan ka dheehan doontaan hadii aad ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar gambaleelkana furo si aad u noqoto daawada koowaad hadaa hore noola joogtana waa maasan tahay muuqaalka like saar siina share garay oo la wadaag asxaabtaada kale ما شاء الله ساس قروحda badan oo igu soo baxay hadana meel aan dhigaya si oo igu soo adkaado ma u baahno fridge meel leer hadii aad dhigtid wuu adkaanaya ما شاء الله ساس quruxda badan oo igu soo baxay geedkaas yar shanlada isticmaalaysa habeenkii marka marinaysid sunniyahaaga waa ku shanleynaysaa sidoo kale eyelasheska waa ku shanleynaysaa isagana ما شاء الله sida quruxda badan ay kugu soo laabtaan adiga arki doono sunniyihii ka gurmay sidoo kalena eyelasheski ka gurmay insha Allah si qurux badan ayuu kugu soo baxaya waxa saaran kartaa tableetka geeska saaran kartaa wax ka halaabay maaha gurigaagan ku sameeysan kartid dib u soo celi sunniyihii ka gurmay eyelasheska ما شاء الله sis quruxda badan noogu soo baxay hadii aad muuqaalkan soo gaartay gunta iyo gabagabadii aadna wili like noo saarin like noo saar like waxayna gaarsiinaysaa meel aad u sareyso dadyo aad u fara badan uu gaaraya muuqaalkeena aad u mahadsantiin sida quruxda badan mar walba igu xirantiin ay taageertaan waa idinkaga mahadcelinayaa alaabtan isku isticmaal insha Allah soo natijaabiye natiijo qurux badan ka arki doontaan sidaas nabadgelyo assalamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh